خبطة يعني لا أنا تابع قال قرنبي هذا لا أنا تابع كريم أنا قلت لك هذه أبها وسام كرفنا هذا اللي بتركي مردم سؤال يسأل يعني قدر سؤالين وصل والله أنا تابع كريم كم رال قلها بحي أردني كاي قلت لنا يجي قراءة له كان قراءة أنا كرتي يجي جوجي كان سيبوا بالك أبها وصل كان جوجي هرتني سانا مسكين وتاخذ سانا مسكين وتاخذ أنت ما قردي واحد تصرت أنت ما قردي رال قلم بحي أنت هذا قرني أنت ما قردي سيبوا بالك سانا ساي قف كان تليفون كذا والله يلا نيجي نشوف ماشي وقوان كراني استراني من كان صوت ستاي استرا صوت ستاي استرا صوت ستاي استرا صوت ستاي امو هالد الاسترا استرا صوت ستاي استرا صوت ستاي من كان codka aad maqlayso waa fartiin balbalaarka oo doonayso in ay wiilka garab siiso laakiin wuxuu sheeganaya haddaba sidaad arkayseen oo muuqaalka bilowgiisa aad ku daawateen waxaa weeyaan wiilal Soomaaliyeed oo isugu tegaya wiil kale oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Mooha sida ay noo cadaysay fartuun balbalaarka oo codkeeda laga dhex maqlayo muuqaalka iyo dagaalka dhexdiisa haddaba wiilkan ayaa wiilasha garaacaya waxa ay ka dalbanayaan in uu raaligelin bixiyo wallow aysan soo bandhigin wax dib ah ama hadal ah oo ka dhan ah qof kale oo wiilkan u geystay haddaba wiilashan oo sida arxan darrada ah isugu tegay wiilkan Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Mooha ayaa fartuun balbalaarka oo meesha taagan waxa ay sheegaysaa oo cadaynaysaa in wiilashan ay ku soo dalbatay gabar lagu magacaabo Mr. Kurlibax haddaba wiilasha ayaa waxa ay ka war heleen xilli dambe in fartuun balbalaarka ay dul taagan tahay isla markaana taleefanka wiilka kiisa ay live uga dirto waxayna isla markiiba ay isku dayeen in weerar ku soo qaadaan fartuun balbalaarka laakiin fartuun balbalaar oo afkeeda xabado ka dhacayeen ayaa wiilashii iska celisay waxayna ugu dambeyntii taleefankii live adiga Soomaaliga ah ee daawanaya muuqaalkan bal arrintan wiilashan ay ku dhaqaaqeen sidee kula tahay wallow arrintan dad badan ay sheegeen in wiilashan ay xabsi ku mudaysan karaan loona baahan yahay in cadaaladda la hor keeno oo dhibaatadii ay wiilkaas u geysteen weliba ay sida live-ka ah muuqaalka iyagoo laga duubayo ay u qaraaceen waa in dhibaatadaas laga abaal mariyo oo cadaaladda la hor keeno maadaama caddayntiiba halkan lagu hayo adiga daawanaya daawadow sidaad u aragtaa hoos noogu soo qor sidaad u aragto haddii aad garanayso wiilashan magacyadoodana sidoo kale hoos noogu reeb halka ay joogaan waxaan u malaynayaa inay tahay magaalada Nairobi laakiin